مما الدنيا دا لقوة دا مسوبة هدومان كل بني هايدتكم لما يشي مدكتوبة معين مالي حتى بدحدو مقنتهاي والله بمتانو حوش مامولاي مدكتوبة معين مالي حتى بدحدو مقنتهاي والله بمتانو حوش مامولاي muruqina malo dul kamera kubero muruqina malo dul kamera kubero midig tuba miin mare hada bidixdu maqantahay walaba matano hawsha maamulaye السلام عليكم magacayga waa Cabdiraxmaan Buube maanta waxaan rabnaa inaan vlog sameeyno waxaan joognaa tuulada Buulo Mareer oo ku taala Canada marka waxaan rabnaa inaan nii tusno beeraha Canada si ay yihiin beeraha Canada sida ay u sameeysan yihiin qaabka loo beero xilligan ku jirno waa xilli samar ah waxa weyn samarka beeraha Canada aad ay u soo baxaan waxyaabo badan ayaa lagu gadaa beeraha Canada iyo beeraha Afgooye ama beeraheena Soomaaliya maxay ku kala duwan yihiin ayaan muuqaalkan ku wada daawan doonaa qaabka loo beero waxyaabaha la beero xilliga gu'ga ama xilliga deerta waxyaabaha soo baxo ayaan muuqaalkan idinku wada tusin doonaa saarkaysan waxa iga dambeeya beeraha birti lagu falay ama maxaa la yiraahdaa makiinada beeraha lagu falo waan fuuli doonaa waliba waxaan isku dayaa xataa inaan beerta qayb aan ka falo meelaha qaarna lama ogola inaan xataa saa u fulo mashiinka ninka laakiin meesha iskala waa isfahanay waxa weyn waa waxaan dhigi karaa waa iska African because colorka dartiisa marka waan kaxeenaynaa bahashan mashiinta waxa weyn geesaha qalbira lagu xirayaa beerta xataa waa lagu guraa canabka ay saar lagu guraa canabka gacmaha lagu guro baalka lagu gurayaa dhulkan waa lagu falaa marka maanta beerley toos ay noqon doonaa soo waxaan isticmaali doonaa drone waxaad arkaysaan hadda beerta dhexdeeda saa u si dhaxmarayo kor waxa iga duubay droonta waxaan ku dhex jiraa mashiintii waxa weyn kale laba ay noqon doonaa videogan aan isla socono مدك بيوعي صدانو قلتها وبيار القنيان والوغدا بالكولا وبريري وايو باهيني يوكو قضشي وبابا جدا xilliga waxa lagu jiraa samarka waxa soo go'a xabxabka aad loo yaqaan waliba xilliyada kuleelka macna samar ka wada xabxabka waa kana beeraleyda caadiga ah maanta noqon xabxabka wax ka gadaya geedka arkaysan xabxabka lagu soo buuxiyay waxa weyn meesha ay taagana waa baadiyaha magaalada dhan ka soo baxan aad baan u soo fogaanay waxaan joognaa magaalada geeskeedii ama maxaa la yiraahdaa duurkan taagana meeshan hadda aan taagana waxa weyn meelaha qudaarta lagu gado waa kuwana waxa la gadaya qiimaha la gadaya meeshan waxa la dhaxgeliy baashan baadiyo dadkan mala habeenay marka kartoon yar wax lagu qorayaa saasa lagu dhaxgelinaa soo saarkaysan watermelonka meesha ama maxaa la yiraahdaa xabxabka waxa la iibinayaa $8 waxa aan joognaa waxa weyn beeraha waliba fruitka beerta dhexdeeda beerta geeskeeda taagana fruitka halkaas laga soo guraa inta lagu iibinaa macnaheedu waxa weyn wax fresh ah beertu halkaan ah qudaarteedu halkaan lagu gadaa caadi ma soo waa arkaysaa baashan waxa weyn waxa lagu soo qaadaa gudaha beeraha ayaa la galayaa markii fruitka la soo gurayo halkaan lagu soo guranaya halkaan lagu soo qaadaa baashan waxa weyn waa suuq ayda raftigeeda fuulnay baashan waxa weyn aan hadda saaranahay waa tan lagu soo qaado qudaarta markii beerta laga soo qaaday halkaan lagu soo shubaa kadib meeshaan la soo dhaxgelinaya soo waxa weeyaan waxaan sameyn doonaa ilaa iyo gudahaas qudaarta ka markii lagu soo qaado kadib makiinada beeraha falaysa taa kaliya ta maahan mid kale halka taala mid kale halkaas taala qudaarta baashaan lagu gadayaa qudaaraha lagu gado magaalada caadiga ah tan way ka duwan tahay alaabtan waa fresh hadda la soo guray hadda qaado hadda cun wax fridge la geliyo ama lagu keediyo ma ahan soo gudahaas aan tagi doonaa ninka qudaarta gadaya aan isla arki doonaa waliba ninkan wuxuu u eegyahay ninka meesha gadaya wuxuu u eegyahay dadkeenan ama waxa ka wadaa dadka madowga ah ama Afrikaanteen aan ka wadaa waxa kaaga daran gurigiisa waa halkan generator halkan u yaala yani motor halkaas uu shidanaya meeshaan u dhex seexanaya ninkan soo qudaarta uu gadaya ayaan gali doonaa arki doonaa sida u yaalan fresh corn sabuulka oo fresh ah qaadanaysa hadal ma karti macna sabuulka waa kana hadda meeshaas alaabta oo fresh hadda la soo guray macna oo kulul yahay iska dhex macna faad zakuni kam xalla qajaarka af Soomaaliga toonta xataa fiiri toonta waa kana halka xabo $2 la gadaya toonta at taqaani hal xabo $2 la gadaya macnaheeda tan magaalada tanaaba ka qaalisan marka isdhaade because
tan wax la hubo oo fresh waa bacrimin ma ahan hadal ma karto fahmaysaa dambiila lagu guray ta magaalada taala dambiila ma bacay ku shubayn alaabtan dambiishaada la boodaysaa macnaha baan ay dambiishaadi asraacisiin $1 $5 $9 waxaas kala xireen marka ilaa xataa halkan waxa yaala bocorkii basbaaska warkooda barayaan barwaaqana ku gaareen barwaaqana ku gaareen hawlo bareeriyo muruq laysu biisha mabda lagu baleeyaa taa inuu kaadag yahay ku qore ugaagto warkooda barayaan barwaaqana ku yaanyada Soomaaliya baashan ogtahay yaanya maxaa lahaa yaanya maryooley meed wax la dhihi jiray kaabash barbarooni waxaad u inta ka qaadanaysaa waa fresh hadal ma karaan macnaha yaanyada intaan $5 la gadaa intaas aan isugu jirto halahan waa qaadanaysaa meeqa xabba ku jirto 5 xabba ku jirto 5 xabbo waa $5 macnaheedu waxa weeyaan waxay qaali u tahay wax la hubo waa macnaha ma fahantay alaabtana waa kan intana waxa weeyaan xaggaas waa qudaarta xaggan waa fruutyada waa ware fruitka markaas uu fadhiya baalkan waa blueberry fresh hadda la soo guray isagana sidoo kale caadi ma strawberry-gan magaalada kan yaal kan waa kala duwan yihiin strawberry-gan waa yariis oo samaysan arag caadi ma sidoo kale meeshan waxaad ka helaysaa xataa ma ahan fruit oo kaliya waxaad ka helaysaa xataa malab fresh malab markaas Shiinada laga soo qaaday oo wali kali la u samaysan aad ka helaysaa meeshan caadi ma so malabkaas xataa waa gadan doonaa haddii aad degan tahay Canada waliba aad leedahay ama Mareykan meelaha ma joogtid waliga malabka magaalada ama meelaha lagu gado iska dhaaf يعني ما هبتد لكن كان باديها لسوء هذا وواحد لهبه والشورة أنا بكم مركز أنا بيدا عادي جايب سوبر ماركت ده أما والماركت ده وين هاي كم كوبي جريرة لمبرون كها شنو الماركت ده صار ليش هذا حكذا البني ملبيه حتى وحي قران أو صافية مكسا شريفكم ملبو فيرنا يا حتى موجود كان برفك وحكوكات سنة يا بالكاس والله عادي ما ماشي واسكا تولع عادي waxaan rabaa meesha inaan ka iibsado malab saafi ah oo aan hadal lahayn ama lagu noqoninin waxa uu iimaanaysa beeraleyda shinideedii halkan meesha hadeerta waa lagu soo tusinaya shinida meesha laga soo qaaday wax lagu daray ma ahan waa fresh marka waxa la iibinayaa malabka intaan $20 asagoo waxa jira xanjaxanjada ah asagana waxa la iibiyaa ka xanjaxanjada $12 marka intaan dhaladan buuxdo $20 ku qaadanaysaa hasameynina malabka dalbatid Afrika lagu keenay halkan iyo malab saafi xaggaas weelaha iska dhaadhicin uu yaala dibadaha waliba meelaha duurka dad soo aadid malab saafi waa heli kartaa so ninkan aan kiibsan doonaa aniga thanks is it like 20 or 12 one way 12 this medium Sudan okay beertu waa kuwana meesha waxa la baarkin baabuurkaada meesha soo dhiganaysaa kadib beerta ay hadda galayna saad arkaysan drone ay isticmaal doonaa viewgeeda dhan saan u aragna beerta sala socda bilow saas marka u soo gasho waxaad arkaysaa tufaax baxaya waliga tufaax inaad cun jirta laga yaabaa isagoo baxay inaad arkin tufaax baxaya waa kan sida geedihi cambaha camal ay u baxaya oo waliba waa kii greenka ahaa ay aad ku fiicnaa tufaax wiis abis waa kan intuu ka baxaa saaxib حاول red apple كاسن وgreen apple ما فهمتي لابد نوع كيلا idin bayaashe buuda hadalku wuxuu yahay Soomaaliya baraaruga hawsha uu bareero la soo baxa barwaaqada taabkiyo birahana tabcada cid kale waxaad ka baridana bayka ma goysi ballanteenu waa shaqo beach hadaa maqash af Soomaaligiis ma aqaan wax lagu dhaw baalkan miseen waa kuwana bahadana la yiraahdaa beach inuu bislaad waxa ku ogaanaysa dhulka ku soo dhacay dhulkana asaga ka buux waa iska cun hadaartid kan waa bolole mucunni kari geedaha dhan waa beach soo waa soconaa wali waxaan gali doonaa gudaha beeraha ayaan hor u gali doonaa kursigan oo ku raaxaysanaysa ninka waardiyay ma meesha fadhiisto ma aqaan waa beerta dhexdeeda kursigan dhex dhigo waxa weeyaan waxaan ku leeyahay waa raaxaysanaysa
beerahaaga waa kanaha meeshaan kaga baxayaan intana kursigaas aan u fadhiisanaysaa qaybta hadda ayada tusin doona dhinacan iyadana waxaa weeyaan canabka sida u baxo oo weliba Canada waa kuwana sidaan loo beeraya xilliyada kuleelka waxaa weeyaan beeraha kal ilaab ay u soo baxaan wadankan waxaan ku leeyahay canabka ay arki doonaa hadda meesha marka galin canabku ma arkina malaha mu soo bixin oo maleyna waqtigiis lagu ma jiro waa kan canab waa kana saaxib waa ware canabku waa kana marka soo dhalay geeskan ilaa iyo waxa weyn ishaad inta aragto canabkaas ka wada buuxo ka baxaya beeraha ama mus inta iga soo baxay saxa waxa ku leeyahay lagu jira waa ware canabka da kan soo baxay kal ilaa soo baxay saa u saada mucunka asoo aan dhaqaniyo dhanaan waa weli mubsan ilaa intuu ka baxaya waxaan u dhan wada canab waa wareeniyo halkii mar meeqa ka soo bax meeshaas leedahay arag intuu leeyahay baalkan dhan waa canab waa ku heestaani waa qeyrin weli mu bislaan shariif waxay uu yaqaano arkay adiga daay mar ma lagu dhaay koble wiil la dhaho magaciis ma la yaabays ha geedkana loogu magac daray waxa ansalaato kale waa la cunaa ha kablaha Soomaaliya uu ka baxaa waana khatar wala waa la cunaa macaan begelka amalu macaan ma begel dad baqara aqoon hadii dan dad soo kan amal waaye okay wana baxaan asii laka dadkan maxay inta ugu beeran way uga faa'iideysan waayeen ma yaqaanaan isleeda ma yaqaan kan hada dhulka caadi wax la abuuro ma badan ku iska soo baxay coos aan u soo baxay okay waa wax la cuna marka ansalaato kala la cunaa asagana geeskaas kala aadi doona waxa ku yaala zeytuunka wax walba beerleyda ninkan inooma ogolaan lahayn beeraha qaar in la gal lama ogola maadaama isku kalar aan nahay yani madowga anagana madow aan nahay macnaha wax ka wadaa afrikaan camal ninka meesha iska leh xaggaas beeraha ku yaalaan oo zeytuun iyo waxa ka baxaya orange iyo laakiin mango wadanka kama baxa u maleynaya mango ma ka baxaa Shariif mango wadanka kama baxa mango waxa laga keenaa wadamo kale so ilaa halkaas sii socon doonaa Soomaali baraaruga hawsha u bareero soo baxa barwaaqada dadkii oo birahana tabcada baadi markaan ku leeyahay arag dadka dhex socda haween xataa fardahaas lagu qaadaya baadi caadi soo baxa barwaaqada dadkii oo birahana tabcada cid kale waxaad ka baridana baayka ma goysi ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo haddii aad beeraley tahay oo aad ka timaaday afgooyi meelahaasi beertu laga gadaa waa shaqaysanaysaa waxaan hadda tegi doonaa webiga isla arkayna si u samaysan war waxaa ku leeyahay meeshan wixii makiinadaha beerta falaya waa la keenay ilaa hadda waxaan arki lahaa laakiin lo oo wadada ku xaaraysa Shariif lo beerta ku xaaraysa oo tageena meeshaan hadda afmamay ku hadal nin waxay la socda beeraha khabiir ku ah beeraley meelan ya aragtay meeshaan hadda taagana xawaan geedahana waxa ka baxa zeytuun Canada badana lagu ma yaqaan mana ka baxo laakiin arona kuwan qaabka u beereen leenka aad buu dheeri halkaas ilaa halkan laamidoon saareen laamiga gaari halkaas dhiganaysa halkan laamiga aad u taagan aad arkaysaa dadka qaar ee meeshaan wax ka gataan ama zeytuunka wax ka qaataan xaggaas ku cunteynayaan hadda arkaysaan qaartaas meesha fadhisa waxa weeyaan zeytuunka meeshaan ka gurteen shaafteera dhiibaysa meeshaas ku cunteynaysa ama hadda doontan gaarigaaga saaranaysa laakiin qudaarta meeshaan banaanka lagu maqad sida kii hadaato kala ma ahan marka waa kuwana xataa u baxaya arkaysa geed korkiisa waa kan markaysa waa zeytuun ilaa halkaas ku yaala qof shakhsi ama wax waraabinay waa tumbo ya kaligeed istuuriyanaysa afarta koona ugu xireen daaqada arda biyaha arkaysan baalkaas tubada mujida taayara ku xiran waxa weey marna inta u soo sikanaya marna gadaal ayuu sikanaya waxa weey wax la set upgrade kolba meel ayuu markaas ka roosheynaya سماركس بيها إلا أنت سوقر ورونا نقينا أنت كشوا دادنا بيها سيدا سامرك بيرها الله ورا بيها ماشي أتاجنا هاي سيدا أركسان وحوان والله ورا بينا بيرت سيدا الله ورا بينا
beerihii Afrika ama beerihii Soomaaliya hadda arki jirtay kanaal oo ama motor la saaray webi oo sidaas kaliya wax lagu waraabinayo hadda arki jirtay alaabtan ma aha saaxib way fadhidaa baalkaas markaysa tumba 4 meel ugu xiran geeska gees ay biyaha saas u siinaysaa waliba u waraabinaysaa sida roobka camal ugu daaya sida arkaysid meeshan waa xawaan machine oo la set upgrade maalin walbo xilliga lagu set upgrade ayuu saa u soo daaya roobka yani haddii maanta laga dhigay kale 5 oo galabnimo ama 12 sax galabtii ama haddii laga dhigay sidaas galab walba 12 sax sidaan ay meesha u waraabinayaan kaaga daran koronto iyo waxa looma baahna sa arkaysan solar dadka u dhigan waa baadiye caadi ah solarkaasi meesha saa ugu saaran saasoo bahalka ugu daaya waxa weeyaan hadal ma karaan dadkan kali ilaaba meeshoodii u samaysteen waan jeclaan lahaa waddankeena ama Soomaaliya in naqshada noocan oo kale ah ee la geeyo ma qof bili aadan ama waxaan wax waraabinay xataa wali waxa jira application mobile ku soo degsanaysid marka waxaan set upgrade adoo gurigaaga joogo ayaad kicin kartaa ama aad ka damin kartaa ama aad ka waraabin kartaa ama aad ka joojin kartaa macnaha beertaada waddankan iyo shimbirahaas maxaa kala saaxo shimbirahan baasaboor haysta ma Sharif baasaboorada shimbiraha haysta maxaa lahaa baasaboor Soomaaliya كذا كوجا ميا فيزا كوجا ميا ولا علي رواش برا صار 700 حبة يقول وحالي لي باسبور كفيزين هذا كده عاي دربك سبوا ذي ميا شو قلت يا ميا ديار واي ماشي أنا رمينا أختي يركو قاضنا نكان بالكو أنا عن قرار كي أو gaariga saartay قالوا كذا لكن سكر ملينيا بروبلم كتير beertan sida u weyn ee aad moodo beerihi waliba liimaha maartay liinta oranjiga qaabkan u baxdaan sida ku ogaa marka meeshan beertii hadaa idin tusinay way ka duwan tahay laabtan waa nooc kale geedaha gabigoodu isla wada sameeyeen si qurux badan u baxaan baalkan hadaad maqashay cherry hadaad maqashay waa kan geedkiisa sidan u baxaa waxa weeyaan sida liinta camal u sameeyeen geediis waa geedo waaweyn ee aad iyo aad u wanaagsan waxa ku leeyahay dad ma joogo beerta arkaysa Soomaaliya waa la ilaaliyaa xataa يعني سي أن لو جبسنين أم وحلا قادن لكن ماشان واسك سوق هذا بيرتنا حتى قف بالأذن فصح كم سوق إن لو دي دون حتى موجي dadka baadiyaha degan kabtooda nooma gasho meesha arag kalluuna ku jira ama malay oo gaduud iyo kalar waxa taa malaygane saacadna ugu dhigan tahay malaayigoodan inta ku keedsanayaan waraha dadkan walaa kabtooda nooma gasho caadi ma baadiyaasha waxa way diyaarsiin meeshan baadiyaha aad dalxiis loo soo aadaa qof walba magaalada degan xilliga samarka ah meeshan uu soo aadaya si uu u helo qudaar fresh ah iyo hawo fresh ah jawi degan galaysa buuq male wax male webigan arkaysaan fi qaybtaas waa Mareykanka mujeda hada tahriib darto Shariif yaxaas inuu ku cuno ma ka cabsanays miya saxaawo Shariif webiga ku jiro laakiin wadamada qabowga waxa la yaxaas ma joogo wuu ku jira been waay webiga oo Soomaaliya Shariif dhiiq waa alaabta caadi alaabta nadiif ah baan alaabta nadiif ah because way sifeeyeen gaaladan niyo Shariif ninkaas ku salaamay Mareykan joogay ومريكا dadka jooga caadi isku salaami karna salaam alaykum hadana wa alaykum salaam caadi oo maqlay waafadno waa kaasa Mareykanka aniga Kanada jooga saani lagu kala jooga macnaha waa isku dhigana hadda dabaasho caadi ugu tagaya
ugu dambeyn waxaan soo gaarnay wabigii biyaha ka qaadanaya ama laga waraabinayo beeraha baadiyo markaan ku leeyahay waxa ku ogaan kartaa wabigan meesha ku yaala wabigan aan hadda taagannahay qaybtaas ama guryahaas meesha ku yaala arkaysid waa Mareykan meesha aan taagannahay waa Canada haddaad maqashay xataa dadka qaar Soomaalida ee gala Canada qaarkood halkaas ka soo talaaban dabaash yaqaan xaggaas ka soo galayaan inta ka soo deegaan kadibna luuqyadan ay ku dhuumanayaan gala Canada qaarkood inta ka soo galaan inkastoo meelo badan laga soo galo laakiin meesha ugu badan meesha ay ka soo galaan waa ka Mareykanka Canada waa tana hay ninka halka taagan ee Mareykanka jooga iyo anigu Canada jooga hay haddaas dhan caad isku maqlay war hay maxay sa Shariif oo saata dhaho oo fiican loo dhigi karaa caad isku maqlayna macna doomahana waxa ku dalxiisa dadka beerahan iska leh ama familigooda markay yimaadaan ay saaraan oo ay ku dalxiisiyaan ereyadan ilaa haddii rabaan xagga in ay u talaabaan way ku talaabi karaan muuqaalka aan ka wadnay maanta beeraha Canada baadiyaheeda inta ay nooga intaan muuqaalka xiga ka gaari doono waxa leeyahay sidaas iyo nabadgelyo adduunyada lagu wada masooba